kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso. Ku soo dhawaad qaybta koowaad ee sheekadii Wiilwaal. Waxaa jiray boqor Soomaaliyeed oo la oran jiray Wiilwaal. Waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin xukun adag, xigmadiisuna badan tahay. Waxa uu ahaa hogaamiye cimrigiisa ku idlaysta duulaan iyo difaac joogto ah. Waxa uu kale oo ahaa nin dadka aad u imtixaana oo isugu daya in uu qof walba garashadiisa dhudhumiyo. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu shir weyn wacay oo isugu yeeray odayaashii beesha. Waxa uu codsaday in nin walba oo soo gaari kara shirka yimaado. Maalinkii dambe ayaa shirkii la isugu yimid. Waxa uu yiri nin walba gurigiisa ku noqdo, shir kalena berri la isugu yimaado. Nin walba ha keena cadka ragga walaaleeya. Raggii shirka yimid oo yaaban oo wartalo maantana wuxuu arrintan cusub uga jeeda isleh ayaa dib u noqday. Way shireen oo war rag tala kama dhamaatay maxuu Wiilwaal raadinaya isweydiiyeen. Cadka ragga walaaleeya ayaa in badan laga dooday. Muxuu yahay mase jira? Si guud iyo gooni-gooniba raggii way u shooreen. Hase ahaatee dhagafaar ayay ka qaadeen inkastoo ay arrintan sii rogrogaaninba ninkii uu garasho ku tuhmayay ayuu dhinac ula baxay. War maxay kula tahay warsade? Maantana ma waxay noqotay sidii Maxamed loo yaabiyey ayuu xaalkoodii ku sifoobay markii ay ku kala faadumaysteen. walbal faq iyo gurfeen waxba ku soo saari weyne nin walba iskii ha ugu soo fakaro arrinta cadka oo ka badin waayana berri taa keeno. Aqaladoodii haddii ay tageen wuxuu nin walba reerkiisii warsaday in neefka ariga ugu buuran la gowraco, hilibkaana si cajiib ah loogu sameeyo. Nin walba wuxuu si gooni ah u codsaday cadkii oo islaha rag ayuu walaaleeyaa. Mid baa codsaday in garabka loo diyaariyo, mid baa codsaday in sararta loo diyaariyo, midba cad gaar ah ayuu codsaday. waxaana raggaas la xujiyey ka mid ahaa nin cayr ah oo aan bar adduun ka nixin, tobaneeyo neef oo ari ah mooyee carruur rajooyin ahna korsada. Carruurta waxaa ugu weynaa gabar 16 jir ah oo la wariyey inay qurux iyo qiimoba lahayd. gurigiisii ayuu tagay odagii, wuxuuna gabadhiisii faray inay gowracdo sameynta neefafkoodii ka dhaqaaqaysa. Gabadhii oo hadlaysa ayaa waxay dhahday, aabbo, miyaad waalatay? Cid ayaynu nahay. Miyuu naga baxaa neef ari ah? Maxaad sameynta ariga laga qaato ku maagtay ayay weydiisay maanta. Aabbo, miyaan khiyaar leeyahay? Soo Wiilwaal raggii ma amrin inay sidaa yeelaan. Wayna ku qasbannahay. Aabbo saraka oo durduri ayuu gabadhii ugu jawaabay. Way u muuqatay danyaraanta gabadha ka calaacalaysa, laakiinse wuxuu laabta ku hayay cidhib xumada ka dhalan karta amarka garaadkoo la diidaa. Sabeentii ayaa la xalaaleeyay. Markii la diyaariyey ayuu odagii kala doorasho galay, isagoo kalba cad qaada dhigaya oo leh talo makana mise waa kaa. Ugu dambeyntii ayuu doortay bowdo oo uu yiri tanaan la tagayaa. Gabadhii ayaa mar kale la yaabtay aabaheed oo su'aasha xaggeed geenaysaa aabbo. Garaadkii ayaana faray in nin walba shirka la yimaado cadka ragga walaaleeya. sidaa awgeed waa inaan bowdadan qaadaa. Aad bay ila buuran tahay oo u malayn maayo in cid mid ka wanaagsan keeni karta.
ay jirto ayuu ugu jawaabay, wax alle wuxuu ugu jeedo garan maayo, laakiin jid kale ima furno inaan warka garaadka yeela ma ahee. intaas waxaanu ku gabagabaynay qaybtii koowaad ee sheekada. Ka bogasho wacan qaybta labaad ee soo socota daawadayaal.